muddo laga jooga sanad iyo wax waqtigan aan hadda duubaya muuqaalkan gabadh daaweyn oo ku jirta lixdameeyada ayaa la waayay hal maruun iyadoon cidna u sheegin meel ay aadayso bilowgiina cidna may tabin oo may xasuusan inay maqan tahay laakiin 2 usbuuc kadib islaantani waxay qabsatay tiifiyada iyo shaashadaha iyo baraha bulshadaba sababtuna waxay ahayd waxa la helay meydkeeda iyadoo si xun loo dilay dilaaga falkan geystay wuxuu ahaa mid qarsoon sababta uu geystayna may ahayn mid cad laakiin kamarooyinkii ku yaalay wadooyinka ayaa duubay dhacdadan oo dhan iyo sida ay wax u dhaceenba kamarooyinkan ayaana daaha ka qaaday dilaagaas sidoo kalena kala dhigdhigay qaabka uu u fuliyey dilkan muuqaalkeena maanta daawadayaal waxaan idinkula wadaagi doonaa qisada gabadhan oo lagu magacaabo Mickwin waxaanan isla ogaan doonaa qisadeeda iyo waxa helay gabadhan Mickwin waxay ahayd gabadh asal ahaan ka soo jeeda dalka Malaysia waxayna ku dhalatay oo ay ku soo qaadatay carruurnimadeedii magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia intaa kadibna waxay u soo guurtay dalka Ingiriiska ma garanayo da'da ay jirtay markii ay Ingiriiska u soo guurtay laakiin muhiimaddu waxay tahay inay u soo guurtay Ingiriiska oo ay halkaas degtay halkaasna waxaa looga bixiyay magaca Deborah oo ah magacaynu adeegsan doona gabadhan intaan qisadeeda ka sheekaynayno sanadadii ayaa socday Deborahna way shaqaysatay waxayna samaysatay nolol kadibna waxay ka iibsatay guri bartamaha magaalada London gurigan ay gabadhan iibsatay wuxuu ku xigay kiniisad Deborahna waxay nooleed kaligeed oo cid la nooleed may jirin ehelkeeda oo dhan waxay ku noolaayeen dalka Malaysia sidoo kale ninkeediina way kala tageen si kastaba ahaatee Deborah waxay ahayd gabadh diinteeda ku dhaqanta markastana waxay aadi jirtay kiniisadda sidaa darteed waxay ka kasbatay shacbiyad badan kiniisadda ugu dambeynna waxayba noqotay qofka ka mas'uulka kiniisadda sanadadiina way socdeen Deborahna way weynaatay waxaana bilaabmay inay cudurro ku dhacaan arrinkanna waa arrin iska dabiici oo qofku marka uu weynaado waxa ku dhaca cudurro Deborahna waxay qabtay madax xanuun aad u daran waxayna isku tijaabisay noocyada daawooyinka oo dhan si ay isaga daaweyso cudurkan laakiin kumay dawoobin dawooyinka ay tijaabisay oo dhan xaalkaas ayna ku jirtay Deborah ilaa in ka soo gaarno 11 bishii 6 ee sanadkii 2021 maalintaas Deborah way qarsoontay oo waa la waayay dabcan bilowgii cidi kumay baraarugin arrinkan laakiin maalmo kadib dadkii kiniisadda imanayay ayaa isweydiiyey gabadhii marka ay maalin socotana waxa sii badanayay su'aalihii dadka oo dhanna waxay ahaayeen qaar u cabsanaya waqtigaasna waxaa soo muuqday war sheegaya in Deborah ay nasasho qaadatay nasashadaas oo ah muddo 1 sano oo ay aaday waddankeedii Malaysia si ay u soo aragtay ehelkeedii ugana soo daydayato halkaas daawo ay isaga daaweyso madax xanuunkii ay qabtay markii warkaasi uu soo baxayna waxa yaraaday su'aalihii la iska weydiinayay ilaa ugu dambeynna la iska ilaawayba gabadhii laakiin 2 usbuuc kadib saldhigii ciidanka waxa soo gaadhay wicitaankan Hi, I just found a body. Oh, go ahead, caller. What's your emergency? I just found a body. Right, okay. A body, is it... Are they breathing? No, they're dead. They look like they've possibly been there like a few days or something. It's surprised. wicitaankani wuxuu ka yimi gabadh Ingiriisa taasoo sheegtay inay ahayd mid samaynaysa jimicsi oo ordaysa iyadoo waddada maraysana ay aragtay boorso meel taalla marka ay u dhowaatay ay furtay boorsadaasna ay aragtay in waxa boorsadan gudaheeda ku jira uu yahay meydkanna wuxuu ahaa mid qurmay oo isbedelay oo ay caddahay inuu muddo ku jiray boorsadan oo uu meeshan yaalay gabadhaasina aad ay uga cabsatay waxaanay aragtay waxayna soo wacday booliskiina si degdeg ay u aadeen meeshii meydku yaalay waxayna soo qaadeen meydkii iyagoo u gudbiyey baadhitaanada si loo ogaado cidda uu yahay meydkani markii baadhitaankii lagu sameeyeyna waxaa la ogaaday in meydkani uu yahay gabadhii Deborah ciidankii may ahayn cid looga shakisan yahay dembigan oo ay soo qabtaan marka koowaad laakiin waxay aamineen in dilkan uu ku riixay qofka geystay argoosi dartii sababtoo ah qaabka loo dilay gabadhani waxay muujinaysay in dilaagu aanu kaliya rabin inuu dil geysto ee waxa ka muuqatay inuu rabay inuu ka argoosto kana argoosto argoosiga ugu daran
waxayna bilaabeen ciidankii inay weydiiyaan oo ay ka wareystaan Dibora jaarkeedii. Jaarkii Diborana waxay ahaayeen qaar ammaanaya oo leh gabadhani waxay ahayd gabadh wanaagsan oo aanay cidna wax dhibaato kala dhaxaynin. Waxayna sheegeen inay ahayd mid dadka oo dhan caawisa, dhibaatooyin iyo mashaakilna ay ka madhnaayeen nolosheeda. Markay halkan maqleenna waxay doorteen ciidankii doorashadii labaad oo ahayd in dembigan sababtiisu ay tahay tuuganimo. dambiilihiina uu ogaan sidan u yeelay meydkan si uu marin habaabiye ciidamada ugana dhigeen dilkan sababtiisu ay ahayd argoosi. sidaa darteed dambibaadhayaashii waxay aadeen gurigii Dibora iyagoo halkaasna ka soo ogaaday in gurigan aan la xadin kamarayn muuqan gurigan wax calaamada oo muujinaya inay cidi xoog ku soo gashay. albaabadii oo dhanna waxay ahaayeen qaar nabad qaba, waxyaabii qaaliga oo dhanna waxay yaaleen guriga. arrinkuna wuxuu ahaa mid la yaab leh, laakiin wakhtigaas waxay ku baraarugeen ciidankii inay meesha ku xidhan yihiin kamaradahan oo ku jeeday guriga Dibora. waxayna qaateen wixii ku duubnaa kamarooyinkaas oo ay dib u daawadeen. bilowgiina waxay arkeen inay jirto gabadh si joogta u soo booqan jirtay islaantan, waxayna ogaadeen in gabadhaas lagu magacaabo Michel. iminkana aan idin bara cidda ay tahay gabadhan Dibora gurigeeda soo booqan jirta ee Michel. Gemma Michel waxay ahayd gabadh u dhalatay dalka Ingiriiska oo ka soo jeeday qoys hantiilayaala, hantidoodana lagu qiyaasay inay gaadhaysay $5 milyan. Michelna waxay ku soo qaadatay carruurnimadeedii dalka Australia, halkaasayna wax ka soo baratay, waxayna soo dhammaysay jaamacadda qaybta dhakhtarka lafaha. intaa kadibna waxay ka soo shaqaysay cisbitaalada ku yaala dalka Australia. laakiin sanadkii 2015 Michel hooyadeed iyo aabaheed ayaa kala tegay. Michelna waxay go'aansatay inay raacdo oo ay la noolaato hooyadeed. sidaa darteed waxay iskaga tagtay shaqadeedii, waxayna ku laabatay dalka Ingiriiska. halkan markay timina waxay wajahday dhibaatooyin badan, dhibaatooyinkaas oo ay ka mid ahayd in lagu shaqaalaysiin waayay shahaadadeedii. sababtana lama sheegin, laakiin waxaa laga yaabaa in shahaadadeedu aanay ahayn mid lagu kalsoonaan karo. manay rabin inay shaqo walba ka shaqayso, ee waxay rabtay inay shahaadadeedan shaqo ku hesho. dhibaatooyinka kale ay wajahaysayna waxaa ka mid ahaa guriga ay degganayd. Michel waxay degganayd guri ay hooyadeed lahayd. guriganna wuxuu ahaa mid aad u qadiimiya, iyaduna umay baran inay ku noolaato guri sidan oo kale qadiimiya. sidaa darteed waxay u baahnayd lacag ay ku hagaajiso gurigan. laakiin lacagta gurigan dib u habeynta ay rabtay loogu samaynayo waxay ahayd lacag gaadhaysa $270,000. Michelna dabcan may hayn lacagta intaas leeg. waxayna bilowday inay iyadu shaqo gaara samaysato oo ay noqoto waxa loo yaqaano spiritual doctor ama dhakhtar dadka ku daaweeya qaab ruuxaaniya. islaantii Diborana waxay ahayd sidaan soo sheegnay mid ka cabanaysa madax xanuun daran. Michelna waxay aaday kiniisadda ay Dibora maamulaysay, halkaas ayna isku barteen labadoodu. Michelna waxay u sheegtay Dibora inay tahay dhakhtar ruuxaaniya oo ay awood u leedahay inay ka daaweyso cudurrada haya oo dhan. Diborana waxay doonaysay inay ka takhalusto madax xanuunkan ay qabto, sidaa darteed way ogolaatay markiiba. sidaasna waxay ku noqotay Michel mid ugu timaada guriga Dibora oo halkaas daaweyntii ay sheegaysay ku siisa. muddo kadibna xiriirkoodii wuu sii adkaaday, waxayna noqdeen Michel iyo Dibora qaar saaxiiba. sidaasna waxayn ku ogaanay qisada Michel iyo cidda ay tahay iyo sida ay isku barteen Dibora ay u saaxiibeen. iminkana ayn ku laabana dambibaadhayaashii iyo waxay ka ogaadeen kamarooyinkii ay baadheen. dambibaadhayaashii waxay ogaadeen in Michel ay ku soo noqnoqon jirtay guriga Dibora. arrinkanna waa arrin iska caadiya sababtoo ah waxay ahayd dhakhtarkeedii oo mar kasta way u iman kartaa. laakiin arrinka aan caadiga ahayn wuxuu yahay Michel waxay soo booqatay gurigii Dibora maalintii taariikhdu ahayd 11 bishii 6 ee sanadkii 2021. maalintan oo ahayd isla maalintii la waayay ay qarsoontay Dibora. waxayna soo booqatay Michel maalintaas gurigan wax ka badan hal mar. arrinka ka yaabka badan midkaasina wuxuu yahay Michel markastoo ay maraysa gurigan maalintaas waxay soo bedelaysay maryaheeda iyo waxay xidhan tahay. iminkana daawada halkan wixii ka dambeeya si fiican iila soco.
waxaan idin sharixi doonaa si faahfaahsan siday maalintaas wax u dhaceen anigoo idin tusi doona muuqaaladii ay kamaradu duubaan maalintaas. Subaxii maalintii taariikhdu ahayd 11 bishii 6 ee sanadkii 2021 saacadu markay ahayd 6:15 kamarooyinku waxay qabteen Michelle iyadoo gurigeedii ka soo baxaysa waxayna wadatay 2 boorso mid ay dhabarka ku wadatay iyo mid ay jiidanaysay. saacadu markay ahayd 6:40 Michelle mar labaad ayay ka soo muuqatay kamarooyinka iyadoo ku socota gurigii Deborah laakiin markan waxay ahayd mid bedeshay maryaheedii boorsada ay dhabarka ku sidatayna may sidan. saacadu markay maraysay 7:56 Michelle waxay ka soo muuqatay kamarooyinkii markii saddexaad markana sidoo kale waxay ahayd mid maryaheedii bedeshay oo maaskana soo xidhatay. intaa kadibna waxay qarsoontay oo aanay kamaradu qaban muddo 4 saacadood ahayd. dambi baarayaashuna waxay aaminsan yihiin in waqtiga ay qarsoontay uu yahay waqtiga ay dambigan geysatay. waxayna ka soo muuqatay Michelle kamarooyinkii mar kale saacadu markay ahayd 12:58 waxaana la arkay Michelle iyadoo jiidaysa boorsooyinkaasoo laga dareemayay inay culus yihiin oo ay wax culusi ku jiraan gudahooda. waxayna aaminsan yihiin dambi baarayaashu in meydkii Deborah uu boorsooyinkaas ku jiray. saacadu markay ahayd 1:36 waxaa la arkay Michelle oo taksi dalbanaysa taksigaas ayayna raacday laakiin dambi baarayaashu ma ogaan meesha uu u qaaday taksigaasi. saacadu markay maraysay 4:16 waxaa la arkay Michelle oo gurigeedii ku soo laabatay iyadoo jiidanaysa boorsada ay subaxii wadatay. guriga ayna gashay oo ay ku jirtay muddo. intaa kadibna way soo baxday waxayna aaday cisbitaalka waxayna doonaysay inay daweyso farteeda oo jabtay. markii la weydiiyey waxa kaga dhacayna waxay tiri albaabayaan iskaga xidhay farta. isku soo duuduuba hadda Michelle ayaa noqotay qofka koowaad ee looga shakisan yahay dilkan. dambi baarayaashuna markii ay arkeen muuqaaladaas way hubeen iyadoo ay dilkan geysatay laakiin ilaa hadda ma hayaan daliil cad oo muujinaya midaas. sidaa darteed baaritaankii ayay ku sii siyaadiyeen Michelle waxayna awoodda saareen inay ogaadaan maalmaha uu dilkani dhacay waxay samaynaysay gabadhani. baaritaano badan kadibna waxay ka ogaadeen waxyaabo kale. dambi baarayaashii intii ay baaritaanka wadeen waxay ogaadeen in cidda sheegtay hadalkii ahaa in Deborah ay ku laabatay waddankeedii Malaysia si ay nasasho u soo qaadato. waxaa la ogaaday in cidda hadalkaas keentay inay ahayd Michelle markii ay dishay Deborah way ogeed in dadkii kiniisaddu ay isweydiinayaan gabadhii. sidaa darteed iyada ayaa kiniisaddii tagtay kadibna dadka qaar ay u sheegtay in Deborah ay aaday waddankeedii Malaysia waxayna sheegtay in halkaas ay ku maqnaan doonto muddo 1 sano. dadka u sheegtayna way sii faafiyeen warkii sidaas ay una ku guulaystay qorshe ay wadatay Michelle. sidoo kale dambi baarayaashii waxay ka ogaadeen Michelle inay ku noolayd nolol badhaadha marka ay kula noolayd dalka Australia aabaheed laakiin markay kala tageen hooyadeed iyo aabaheed waxay ku qasbanaatay inay shaqadeedii ka tagto si ay hooyadeed ugula noolaato dalka Ingiriiska. sidaa darteedna xaalkeeda dhaqaale uu aad hoos ugu dhacay waxayna ku noolayd guri qadiimi oo kharaab ah oo sidaan halka hore idinku soo sheegay ay rabtay inay hagaajin ku samayso. lacagta lagu hagaajinayaana waxay gaadhaysay $270,000 taasoo ay macnaheedu tahay in Michelle ay lacag u baahnayd. sidaa darteed waxaa laga yaabaa in waxa ku riixay dilkan uu yahay tuuganimo darteed sababtoo Deborah waxay ahayd mid lacag haysata sidoo kalena waxay lahayd guri weyn oo ku yaalay bartamaha magaalada London. gurigan oo qiimihiisa lagu qiyaasay inuu gaadhay $1 milyan. sidaasna wax kastaaba waxay ku noqdeen qaar u cad dambi baarayaashii. Michelle waxay u dishay Deborah si ay xoolaheeda u qaadato. arrinkaasna waxaa sii xoojinaya dardaaran ay been abuurtay Michelle. dardaarankanna waxaa been abuurtay Michelle iyadoo ka dhigaysa in Deborah ay qortay waxaana ku qornaa dardaarankaas in Michelle ay qaadanaysa 90% hantida ay ka dhimatay Deborah. 2 usbuuc kadib dilkii oo ku beegnay 28 bishii Juun Michelle waxay soo karaysatay baabuur noociisu yahay Volvo. maalintii ku xigtayna waxay duubeen kamarooyinkii Michelle oo kala soo baxaysa gurigeedii boorsadaasna waxay saartay gaadhigii.
dambi baadhayaashuna waxay aaminsan yihiin in boorsadaas uu ku jiray Deborah meydkeedii oo ay ku qaaday si ay meel kale ugu soo tuurto. waxay kaxaysatay Michelle baabuurkii waxayna u jeesatay dhanka magaalada Bennett. intay ku sii socotay magaaladaasna waxaa sawirtay kamaradaas oo ku taalay dukaan ku yaala meel kaalin shidaala. kaalintanna waxay ka fogeyd masaafo 200 oo kiiloomitir ah meeshii laga helay meydka Deborah. saacadu markay maraysay 9:12 daqiiqo oo galabnimo, kamarooyinka ayaa duubay Michelle iyadoo soo galaysa magaalada Bennett. 40 daqiiqo kadibna Michelle way ka soo baxday magaaladan. dambi baadhayaashuna waxay aaminsan yihiin in wakhtigaasi uu yahay wakhtiga ay Michelle soo tuurtay meydkii Deborah kuna tuurtay magaalada Bennett oo ahayd meeshii laga helay meydka Deborah. Michelle markii horeba waxay soo qaaday Deborah telefoonkeedii wayna shiday waxayna ag dhigtay meydkii si ay uga dhigtay dambi baadhayaashu marka ay baadhayaan kiiskan in Deborah ay magaaladan timiyadoo nabad qabta oo telefoonkeedana sidata. Michelle marka ay soo tuurtay meydkii iyadoo wadadii soo socota ayaa waxaa ka xumaaday taayir baabuurkii ay wadatay. Michelle may garanayn sida taayirka loo bedelo waxayna aaday meelaha lagu bedelo taayirada. ninkii u bedeli lahaa taayirka ayaa soo baxay oo isiri fur albaabka dambe ee gaadhiga si aad uga soo saarto taayirka isbeerka oo ugu bedesho. laakiin markii uu isiri fur gaadhiga dhanka dambe waxa soo carartay Michelle oo ku tiri ha furin gaadhiga ee igu xidh gaadhiga taayir cusub isbeerkana ha taaban oo meeshiisa iska yaallo. ninkii uu la yaabay gabadhani waxay uga jeedaa arrinkan wuxuuna sheegay inay ahayd mid naxsan oo cabsanaysa. sidoo kale wuxuu sheegay in isagoo bedelaya taayirkii uu uriyay ur aad u qadhmuun oo ka soo baxaysa gaadhigan wuxuuna sheegay inay ahayd urtaas sida wax qudhmay oo kale laakiin wuu garan waayey waxaan uraya waxa uu yahay mana ogeyn miskiinkan in gaadhigan meyd lagu qaaday hadda. si kastaba ahaatee Michelle waxay hagaajisay baabuurkii waxayna ku laabatay gurigeedii. maalintii ku xigtayna waxay iska celisay baabuurkii ay soo kiraysatay. maalintaas ayaana la helay meydkii Deborah. dabcan halka hore ayaan idinku soo sheegay sida meydka lagu helay oo ahayd in gabadh jimicsi samaynaysa ay meel ka heshay. kuma celinayno laakiin markii ciidanka ay isku soo ururiyeen xogtaas oo dhan waxay go'aansadeen inay u tagaan Michelle oo ay soo xidhaan. Police! Hello there. Hello, how are you? Yeah, good. Was your answer? Sorry, what's your name? Sorry, we're asleep. You Gemma? taariikhdu markay ahayd 6dii bishii 7aad ee sanadkii 2021 ayaa Michelle la soo qabtay waxaana lagu soo eedeeyay dembiga dilka islaantii Deborah. ciidankiina waxay galeen gurigeedii waxayna bilaabeen inay baadhaan. halkaasna waxay ugu tageen dukumentis ay Deborah iska lahayd iyo dardaarankii been abuurka ahaa ee been abuurtay Michelle. 2 maalmood kadib soo qabashadeediina waxaa lagu bilaabay baadhitaankii. Why is that, Gemma? No comment. The car stank, didn't it, Gemma? No comment. Stunk of a dead person. No comment. Stunk of Deborah's decomposing body. Is that right, Gemma? No comment. dabcan Michelle way inkirtay in iyadu dishay Deborah waxayna ku adkaysatay inay beri tahay oo aanay wax dembiya gelin. arrinkanna waa arrinka inta badan dembiilayaashu ay sameeyaan inay dafiraan dilka iyo dembiga ay geysteen. laakiin Michelle cadeymaha kulidka ee meesha yaalay waxay ahaayeen qaar aad u xooggan waxaana la saaray markiiba maxkamadda. bilowgii sanadkii 2022 waxaa lagu xukumay xabsi daa'im. intaasi uuna ku eegyahay daawadayaal muuqaalkeena maanta. ha iloobin hadduu ku qanciyey muuqaalku inaad like saarto sabskraibna saar haddii aad ku cusub tahay channelkeena ogaal cusub. waad mahadsan tahay.